Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa xalay mar kale loo doortay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya kadib doorasho waqti badan socotay oo ka dhacday teendada Afisiyoni. Doorashada oo soo gaartay xili dambe ayaa waxa ku baratantay ilaa 8 musharax, balse waxa aan hoolka doorashada imaanin mid ka mid ah musharaxiinta kaasi oo ah gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo isaga haray tartanka. sidaasi waxaa tartanka gudoomiyaha golaha shacabka loogu qabtay 7 musharax oo qaarkood ku haray wareega koobaad, halka kuwa kalena ay tanaasuleen inta aan loo gudbin wareega labaad. waxaa wareega labaad u gudbay 4 musharax oo kala ah xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, xildhibaan Xasan Cabdi Nuur Cabdi, xildhibaan Aadan Saransoor iyo xildhibaan Cabdullaahi Balaag. waxaa inta aan loo gudbin wareega saddexaad hadal kooban la siiyay musharaxiinta kala ah Aadan Saransoor iyo Cabdullaahi Balaag, kuwaasi oo sheegay in dalka uu marxalad adag ku jiro loona baahan yahay hogaamiye ka samata bixin kara, waxayna u tanaasuleen Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe. Sheekh Aadan Madoobe oo horey xilkan u soo qabtay iyo Xasan Cabdi Nuur Cabdi ayaa waxa kala watay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo kooxda madaxweyne Farmaajo oo garab ka haysta hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa xoog iyo xoolo isugu geeyay xildhibaan Xasan Cabdi Nuur Cabdi oo hogaanka doorashada hayay wareegii koobaad, laakiin wareegyadii kale ee doorashada dhulka lala jaray. doorashadii xalay waxaa villa Soomaaliya soo gaaray jab xoogan. inta badan doorashada gudoomiyaha golaha shacabka waxay saadaal ka bixisaa doorashada madaxweynaha Soomaaliya, waxayna dad badan ku macneeyeen doorashadii xalay dhacday tartan adag oo u dhaxeeyay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed. marka lagu dhawaaqay in Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe loo doortay gudoomiyaha golaha shacabka, waxaa magaalada Muqdisho isqabsaday dabaaldegyo waaweyn iyo hambalyo hawada loo marinayo Sheekh Aadan Madoobe. kooxda madaxweyne Farmaajo ayaa shalay diidanayd in la qabto doorashada gudoonka golaha shacabka, iyadoo ka cabsi qabtay in cashar loogu dhigo doorashada gudoonka. sidoo kale doorashadii gudoonka aqalka sare ee dhacday 26 bishan Abriil ayay villa Soomaaliya guuldaro kala kulantay. maanta oo Khamiis ah ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo doorashada gudoonka golaha shacabka, waxaana harsan oo la dooran doonaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo labaad ee golaha shacabka. ra'iisul wasaare Roble, madaxweyne Farmaajo iyo dhammaan hogaamiyaasha Soomaalida ayaa u hambaliyeeyay gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. doorashadan ayaa ka dhigan in muddo xaalka madaxtinimada Soomaaliya ay ahayd mid hubanti la'aan ah ay hadda muuqato in hawshaasi soo dhamaatay oo ay xigi doonto mudeynta doorashadii madaxtinimada. haddaba daawade, guusha Sheekh Aadan Madoobe iyo guuldarada villa Soomaaliya maxay ka bedeli kartaa xaaladda dalka oo meel adag taagan?